aniga ahaan haddaan iska soo qaaday kaliidaas ahaan aynu waxaan aaminsanaa degmadan inaan soo gali karin oo dadka aan u soo galaayo iyo dadka joogo dad aniga igu level igu age inaysan ahayn oo dad iga waaweyn ay yihiin waa inay keenaan dhalinyaro inay siyaasadda isbedesho tababarkani wuxuu ahaa tababar loogu talagalay dhalinyaro laga soo xulay labada degme kala ah degmada Dayniile iyo degmada Kaxda oo degmadiiba laga soo xulay 9 dhalinyaro ah la rabay inay bartaan oo ujeedku ahaa in dhalinyarada la baro tababaro iyo xirfado dhalinyarada ka qayb gelin kara inay qayb ku yeeshaan talada iyo maaragtay go'aan qaadadka iyo maamulka degmooyinkooda iyo deegaankooda oo dhalinyarada u saamaxay inay noqdaan muwaadiniin firfircoon oo arrimaha bulshada muhiimka ka shaqeeya ku baraarugsan doorkooda sidoo kalena u tababaran oo garanaya oo haysta xirfadaha ay u baahan yihiin si bulshadooda isbedel wanaagsan ay uga dhaxlayaan seminaarkii ka dambe trainingkii ka dambe iyo degmadii ku soo biiritaankeeda ka dambe waxaan aaminay qofka dhalinyarada degmada ay u baahan tahay oo Soomaaliya ay u baahan tahay especially degmada ay u baahan tahay aniga ilaa levelkayga dhalinyaro ahaan inay tahay marka dhalinyarada way noqon karaan leadership wayna u qaban karaan degmada iyo wadanka Soomaaliya waxay u baahan yihiin way fulin karaan wayna u yihiin dhalinyarada waxaa seminaarkaas ka mid ahay oo dhowr qodob oo anaga aan ka dooranay bulshada inaan dib ugu celino sportiskana waxaa ka mid ahay waxaan ku dooranay dhalinyaradu maadaama ay caqabado badan ka dhex jirto annagana wax nagu dheliyey inaan isku keenno kulankaas sportiska waax ahaan markaas waxaa meesha nooga dhalanay dhalinyaradu inay isjeceliin inay meesha nooga muuqato dhalinyaradu inay isku imaan karaan inay saaxiibtinimo dheeli karaan inay arrimo dan guuda ay ka shaqay karaan annagana wax nagu dheliyey inaan isku keenno oo aan ka shaqayno danahooda inaan tusno wax aan qabanayno wax ay ayagu leeyihiin ay annaga nagu deystaan haddii ay nagu deystaan waddankan wuu isbedelaa barnaamijkii aan qabanay ama fikrada aan qabanay wuxuu iga dhignaa يعني dhalinyaro markii la yiraahdo inta badan ka Soomaaliya jooga ama xilligan ama burburkii kadib qofka maskaxdiisa waxa ku soo xaadiraysa dhalinyarada inta badan dhibaatooyinka loo adeegsada su'aalahan dagaaladii ka soo dhici jiray wadanka oo kale in dhalinyaradu ay qaybta ugu xoogan lahayd oo dabka ay ku daadanaysay laakiin barnaamijkaasi markii uu imaaday waxaan tusinay in dadku ay sameystaan barnaamij aan u qaban karno barnaamijkaasna ay ka faa'iidi karaan waxyaabo kala gedisan oo ay ka tahay isbarashadii isdhexgalkii nabadii barnaamijyadaas iyo barnaamijyada sportska iyo goobanta badan goobaha dhalinyarada isugu imaadaan iyo waxyaabaha la xiiseeyo runtii wuxuu nooga dhignaa barnaamij muhiim ah oo hor u kacay dadkan inay nabad ku wada noolaadaan tababarku wuxuu fahamsiiyey inay roolka ayagu leeyihiin wacigooda kor u soo qaaday ilaa ay shaqooyinka nagala qayb qaataan marka maanta wuxuu haystaa fikrad iyo aqoon iyo aragti oo bulshadiisa ku tari karo naftiisana ku tari karo haystaa